رسول الله وبعد aad baad u mahadsan tahay walaalka jazaaka allah khayr mara ukhra in kitaabkan la yidhaahdo fanul xarb dagaalka artiga dagaalka waxaan u malaynayaa inaan akhriyey ilaa iyo 5 jeer kitaabku kitaab maaha badan oo culus maaha waa kitaab aad u yar waa kitaab ka samaysan qawaacid xeerar buu ka samaysan yahay ama haddaan si kale u dhigno wuxuu ka samaysan yahay maaragtay mahmaho sida mahmaha ayuu u qoran yahay ninka la dhahdo sansu baa qoray 2600 oo sano ka hor waa laisku khilaafsan yahay laakiin 2600 oo sano ka hor ayuu qoray waa buug qadiim ah waa qadiim nabi ciise calayhi salaam intuu dhalan wuxuu ku horreeyay 6 qarni marka waa 2600 oo sano buugga waxaan akhriyay aniga oo 28 jir ah dabcadda waqtiga aan ku akhriyay ee carabiga ahayd dabcadda radii ahayd oo aad u foolxun qofka qoran af carabigiisu ma fiicnayn laakiin waan akhriyay haddana 10 sano wax ku dhow 36 jir anigoo ah yaan dib u akhriyay kitaabkii waxaan isla akhrinay saaxiibkay ahaa oo dhakhtar ahaa oo la oran jiray doctor abubakar ibrahim halas oo nin mufakir ahaa ilaa uu naxariisto diyaarad baa la qaraxday uu dhintay helicoptera ciidanka Djibouti buu ahaa dhakhtarna uu ahaa ninkaas baan buugaanta aad u wada akhrin jirnay oo habeenkiisa soo jeedi jirnay waan isla akhrinay kadib waxaan isla qornay istaraatiijiyadaan u bixinay istaraatiijiyadda badbaadada dhalinyarada muslimka iyo reer Djibouti si aan uga badbaadinaa dagaalka maskaxda oo loo yaqaan al-ghazw al-fikri waan wada qornayd Djibouti bay ka taallaa qoraalka aan wada aniga doctor abubakar ama mustafa loo yaqaan aan wada qornay haddana waxaan akhriyey anoo Canada jooga isla buuggii waxaan qoray maqaal ku qoran sabxadayda oon u bixiyey sideen uga baxnaa dhibaatooyinka annagoo ka fadhiisanna kitaabka uu qoray sansu iminka anoo halkan jooga maraykanka buuggii waxaa turjumay maqaal fiicanna ka qoray mufakirka weyn ee reer Mauritania ee qatar jaamacadda ka dhiga doctor maxamed al-mukhtaar shaqiidi wuxuuna ka qoray wuxuu u bixiyey بذور الفكر الاستراتيجي وجذوره بذورته حبوبة اللبيرو هي حديدة فكر كاستراتيجي maxaan ku dhahdaa ay leedahay dowladda Shiino oo marka uu leeyahay waa 26 qarni ayuu haystaa Maraykanku Shiino marka wuxuu leeyahay waa fikri istaraatiiji oo cariiqa وآد فوق عميقنا ساسو ليه لكن وكقد وينها بوغانتي هورين آخرين ترجمات دانا وسجا سميوه بقرح بدن تاعي لغة عربية وقرح بدن يكون ترجمين هب ونكسن وترجمين وحنا الرعية تحليل إلا صدح يلي حدا بوغا وكوفا في جورن مجرى لباب markii kale waxaan akhriyay 3 habeen ka hor ugu dambeyntii isaga ku noqday markan waxaan ku akhriyay indho ah maxaan ka faa'iideysanaa annagoo laba qol ah annagoo ah ducaada North America taamar dama ka hadlaynaa oo muhiim laakiin sax North America dacwadda cusub waxay ka socotaa muddo 40 sano hindida iyo carabtuna 70 sano annaka Soomaaliduna 40 sano ayaa dacwadda dadkeena geeska Afrika yimid ayaa wadnaa waxaan ku bilownay cafawi soo ma garanaysa aska bilowno ashwaaya badbaadan doonay sidaas ku badinaa waxay istaraatiijiyo noo taalay ma jirin laakiin su'aashu waxa weeyaan qarniga 21 oo ah qarnigii istaraatiijiyaadka inaan weli u shaqeynaa sidii berigii loo shaqeynayay 50 sano ka hor carabi iyo cajam
oo islaamku uu fidayo isagoo diinta ilaahaya dadkuna ay diinta xajisanayaan iyaga oo muslimiin ah laakiin ayna jirin wax istiraatiiji ah oo dadkaas u yaala ma jirto marka waxaan ka fikiray sidee loo dejin karaa istiraatiijiyad dhalinyarada kala sheekaystay marka iyadana waan mar kale aan ka hadlay insha Allah midda labaad waxay ahayd marka akhriyay imika waxaan ka fikiray annagu haddaan nahay shucuubta geeska afrika maxaan ka faa'iidaysan karnaa kitaabka Sun Tzu maxaan ka faa'iidaysan karnaa marka waxaan halkan soo saaray 3 su'aalood baa in hor oolaysa marka saan uga faa'iidaysano waxaan u bixiyay as'ilada maaragtay masiiriga su'aalaha masiirkeenu ku xidhaya waxaa ku xidhan ba gabagabada nolosheena su-aasha koowaad wax weeyaan waa su-aal jiritaan waxaan isweydiiyey ma noolaan karnaa casrigan mana ku noolaan karnaa shuruudda casriga waa su-aal casrigan ma noolaan karnaa shuruudda casriga anagoo la jaan qaadayna ma noolaan karnaa physics ahaan waa noolaan karnaa oo anba waan jiraa adna waa jirtaa ugaasideennuna way jiraan boqoradeennuna way jiraan madaxdeennuna way jiraan calankii Soomaaliya uu jiraa calankii Djibouti uu jiraa kii Ethiopia uu jiraa laakiin uma jirto la ixtiraamo oo la qadariyo adduunka macno ku soo kordhisa macno ma leh imika asbuucii dhowdina dhaafay madaxweynaha ra'iisul Ethiopia wuxuu u yeeray Xasan Sheekh markuu sii sagootiyana wuxuu u yeeray madaxweynaha Soomaaliland cunro marka kii Soomaaliyana kama warramin wixii loogu yeeray kii Soomaalilandna kama warramin wixii loogu yeeray laakiin labadaba waa loo yeeray waxbaa loo sheegay wixii loo sheegay ma sheegi karayaan marka shuruud buu leeyahay casriga lagu noolaado waa shuruudda Israa'iil iyo Xamaas ay ku wada dagaalamayaan Xamaas oo jabhad yara shuruud casriga ku nooshahay Israa'iil oo dawlad la taageero ana shuruudda casriga ku nooshahay anagu shuruudda ma ku noolaan karnaa waa su-aasha koowaad isweydiiyey waxaan u bixiyey su-aasha jiritaanka su-aasha labaad waxaan u bixiyey su-aasha horumarka qofku markuu jiritaankiisa sugo maxaa ku xiga inuu horumar sameeyo su-aasha horumarku wax weeyaan suurtagal ma inoo tahay inaan tartanno casrigan cusub oo laakiin ku tartami karno shuruudda horumarka tartan waa la gali karaa laakiin ma ku tartami karnaa maxaa idhi shuruudda horumarka horumarku shuruud buu leeyahay shuruudda haddayna jirin horumar ma jiro suurtagal ma tahay su-aashaa baan isweydiiyey anoo ka faa'iidaysanaya Sun Tzu kana faa'iidaysanaya marxaladaan soconana su-aasha saddexaad ee isweydiiyey wax weeyaan waa ta istiraatiijiga su-aashii koowaad waa wujuud waa jirtaan tii labaad waa horumar tii saddexaad waa maxay waa istiraatiiji su-aasha istiraatiijiga isweydiiyey Cabdirasaaqo waxa weeye suurtagal ma tahay inaan challenge-ga ina hor yaala aan waajahno aan ka hortagno annagoo sidana maanan istiraatiijiya maskax istiraatiijiya maaha maskax iska hadlaysa maaha maskax shirar iska qabanaysa maaha maskax imika waxaan maqlay inuu shirkii carta qabanayo Ismaaciil Umar mar labaad uu leeyahay qiimeeyna shirkii carta marka yaa loo yeedhay oo qiimeynaya ra'iisul wasaarayaashii hore iyo madaxweynayaashii hore iyo qaar ka mid ah oo inta tagaan meesha marka aan qiimeynayno shirkii carta amba kii ka dambeeyey kii carta nasakhay ee ka dhacay Kenya Nairobi ka dhacay ma aqli istiraatiijiyan ku eegnaa mise waan iska eegnaa marka suurtagal ma tahay taasi inaan markaana yeelano waxaa loo yaqaana maskax istiraatiiji oo dhigi karta maxaa dhahdaa khudo istiraatiijiya oo laga baxayo problemyada ina haysta saddexdaa su-aalood ayaan isweydiiyey markaan buuggii markii shanaad aan akhriyo dhameeyey anoo North Americana eegaya dacwadeeda geeska Afrikana shucuubtii muslimka iyo Soomaalida gaar ahaan anoo eegaya say u badbaadi lahaayeen marxaladan adag ee la galayo oo weliba loo bixiyey marxaladda adduunku uu noqonayo ninka xoogga weyn la uu liqaya ninka xoogga yar leh ninka balaani ku socda uu liqaya ka aan balaan lahayn ninka awood la'aanta uu liqayo waqti aanan la eegayn maxaad iminka matalan dowladda Djibouti oo kale dowladda iyo dowladda Mareykanka waa isku miisaan marka shucuubda Qurban la joogo isku cod bay
laakiin marka la tago majliska amniga isku cod maaha marka awood leegana isku cod maaha maanta kadib markii uu dhacay dagaalkii Gaza iyo kii Ukraine isku fikradu isbedel weyn baa ka dhacay sidee baan markaa marxaladan aan uga bixi karnaa baa su-aashaa baxay waxaa ii keenay waa tahay inaan isweydiiyo waa runtii kitaab aad u qiimo badan daawadayaasheenana waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna buuggaasi raadsadaan fanul xarbi baa la dhahaa aadna akhrisaan af kastana uu ku qoraya af kastana waa ku qoran waa turjuman yahay waxyaaba badan carabiga iyo ingiliishka af soomaaligana cid ku turjumi lahayd baan u baahnaa fan ragga afka soomaaliga aadka u yaqaana oo uu ka mid yahay saaxiibkii doctor khadar oo nala degan maraykanka waxaan ugu yeeri lahay inay turjumaan inuu noo buuggaas turjumaan waa buug fiican haddaba sheekhi markaan ka hadlayno khudooyinka horumarka ama istiraatiijiyooyinka aan doonayn dadkeena aan la wadaagno su-aal baa ka horeysa oo noqonaysa horta maxay yihiin taxadiyaadka ama caqabadaha ama challengeska jira ee la rabo in laga gudbo geeska africa caqabadahaasi maxay yihiin horta markaad geeska africa aada ugu fiirsatid waxaa jira 5 challengeyo oo waaweyn oo ka jira dhammaantood waliba gaar ahaan dadka muslimiinta haysata aniga waxaan u fikraya wax weeyaan waa dadka muslimka waxaan u fikraya Ethiopia hadda ganaada amba Soomaalidu waa wada muslim Afrika wada muslim amba Djibouti hadda ama Kenya hadda ganaada waxaan u fikraya wax weeyaan waa qofka muslimka iyo ummadaha muslimka waxa weeyaan waxaa haysta 5 arrimood baa haysta arrinta koowaad ugu muhiimsan wax weeyaan waa takhalluf thaqaafi wa xadaari takhalluf baa haysta dib u dhac weyn oo dhinaca culture-ka iyo dhinaca ilbaxnimada waxa u suurtagali ah dadka muslimiinta inay isku xidhaan horumarka iyo hawiyadooda u suurtagali ah ila al'aan waana mid qaataan ama mid ka tagaan marka ama dawabaan bay sameeyaan waxay ku dhex dhalaalayaan mashruuca dadka kaleeto amba wuxuu uga xajisanayaan waqtiga casriga ka harayaan labada inay iska haystaan sida uu China imika sameeyo kale magaran China shuuciyad buu qaatay Confucius-kiina kama tagin Sun Tzu buu ku dhaqmayaa oo Mao Zedong baa kama tagino isagoo haysta kitaabkiisa ولذلك nin Mareykan oo Robert rado wuxuu u bixiyay kitaabka Sun Tzu Injiil Siin China injiilkooga weeyaan wuxuu dhaqankoogii marka taasi waa mid koobaad aslahay oo haysta dadkeena challenge-ga labaad ee haysta waxa weeyaan alwaan alxadaari waan jabnay iraada mali ولذلك nin mufakira wuxuu baaray wahanka quraanku sheegay xadiisaatu ay sheegeen fama wahanu soma quraanku boqol nabiguna yusiibukum alwahan asaba alwahan soo wahanku muxuu yahay iyo dacfiga maxaa u dhaxeeya ضعفiga kabada ضعfi waa ita dari wahanku laakiin ita dari maaha wahanku waxa weeyaan waa adoo iswaaya oo jalca laakiin marka lagu eego cilmiga epistemologiga waxa dhacda wahanka waa waxa loo yaqaano al-iraada qofku markuu lahayn rabitaan mubalaba qaraar decision ma qaadan karo ishiis waxa eegaysaa waxa laga leeyahay qaado rag baa beel fadhiyo kale qaadan iraada ma diin waa loo meerinaya marka hadihi waa wahan ولذلك لا فما وهن وما ضعف لا ولا سرعي وما وهن وما ضعف ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا الوهن هو طويل مسلمين تجيس كأفريقيا وهن باهستا إرادة ماله هذه إرادة يشار وحده حدودا صومالي الحدود واسكورك ورمية صومالي كسدنا واسكورك صومالي عفوا كسدنا واسكورك قبائش واسكورك لكن مركا أي تهي الآخر رقمها وكلا شقيان ولو كلا دوسيا كينيا ولو كلا دوسيا إثيوبيا أمحارك يعدانك بقى فما هذا جالانجي لبعض الوهن جالانجي كصدحات وحالة هذا الانكسار العسكري يا الانكسار العسكري إذا هان وان جبني سوماليا تضباطي إثيوبيا وأرتي iyada oo ka soo xoreeyay dhulkii Soomaalidu ay lahaayeen jabhado way ku sameysay Oromaa iyo jabhado Eritreana iyo Tigray iyo wax kasta ku sameysay iyo Afar waxa soo jabhada Maxamed Barasimi raxmatullahi alayhi laakiin
inkisaarka caskariga xaqiiqiga wuxuu ku dhacay Soomaalida Ethiopia way hadhay Soomaaliya ciidanku ka burburay marka awoodna ilaaliso oo ciidan oo maaragtay quraan ku qoran waa ciddu lahum mastadactum min quwwa ma hayno marka qofku hadduunan haysan awood caskari ah xamati dowladda la dhahdo Kuwait markuu qabsanayay Saddam Hussein rahimahullah wuxuu ku qabsay 3 saacadood waxaana la sheegay hubka ay iibsatay inuu ka badnaa 2 trilyan Kuwait hubka iibsanaysa weligeed waxba u tiri waaye waxyaalahan uga baqa Djibouti waa hadii Ethiopia soo weerarto maba u diyaarsaneenba waa inkisaar caskari soo maataas hadii saddexaad weyn arinta afaraad ee nahaysata challenge waxaan as-suqud al-qiyami halka qiyamka maaragtay ya values iyo faleerada iyo akhlaaqda suqud waan dhacday saaqidiin baan nahay qiyamkeena saaqidiin baan ku nahay iyadoo wali muslimiin leeyahay oo kitaabka la raacayo beentu waa xalaal wali markaan dhaaranna saan u dhaarana ka yaabano wallahi igu billahi igu talla adduunka wax saa ku dhaarto ma jirto uqsimu billahi alcadiim baa dhaabis wal marma kitaabka quraan saara ayaan dadka qaar dhaaranay waxa arkay kitaabka gacanta oo saaraya sama oran kareen u garanay inuu been sheegayo saas u dhahay qaarna baba dul dhigaya kitaabka hablaha waxaan isleeyahay inay xaydkii waxa leeyahay baa suurtagal ama nifaaskii mugta marka quraanka way ka xishooraysaa inay gacan saarto laakiin raggu maxay san u leeyihiin maxay san gacanta u leeyihiin cabsi waa ku jirta u garanay inuu wax ka rusheegin ولذلك سقوطك قيمك يا اخلاقك مثل ما انت waxaa aqnay diraaso wadanka lagu sameeyay Yurubta waxa la isku eegay Sweden iyo Masar waxa la yidhi Sweden xaditaanka ka dhacda sanadkii waa 2%. Masarna waa 8%. waxa la yidhi 22,000 oo khudbad oo jimcaha iyo dhageystaan masaaridu Sweden waxba ma dhageysato xagan qiimihii amaanada maxaa adkeeyay xagana qiimihii tuugnimada maxaa badiyay in wax la xado annaka agteena waxa sax ah inuu qofka madaxii xoolaha dadka uu iska xadi karo culture kiba values ma waayin fuqdaan ma waa suquut ya taasina nagu dhacday waa tiimsa markaa suquud qiimo waa 4 waa tii afraad arinta ugu dambaysa oo shanaad oo aan leenahay oo ku tusaysa inuu taxadiyaad iyo challenge waaweyn jiro wax weeyaan waa tamasuqa waa burburka ummadeenu geeska Afrika ummadda islaamka Soomaalida Djibouti dadku way burbursan yihiin qofna qofku ba xidho dadku way kala shakisan yihiin tamasuqu maaha un qabaysha qofka dhan baa laba noqday markuu la joogo madaxdana waa qof markuu ka baxana waa qof waxay oran jireen dadkii qaarkii bari hore waxay oran jireen suyufuna ma'a Ali ma'a Muawiya wa qulubuna ma'a Ali baashaas yaa la iska dhaqmayaan taatu ka xun munaafaqadii ka maraysa qofkii uu kala go'an yahay qoyskii uu kala go'an yahay bulshadu way kala go'an tahay tamasuq caama ayaa inagu dhacay challenge-yada markaan haysto waa koob taasaan oran lahaa maaragtay waa challenge-yada ugu badan ee mujtamaceena haysto weeyaan haddaba sheekhi challenges-kan ama caqabaadkan runtii waa caqabad aad u waaweyn weeye oo mid walba in gooni looga hadlo u baahan sax weeyaan takhalluf thaqaafi iyo wahnigii jabitaan xagga askariga iyo suquud alqiyami iyo tamasuq ummadda yaa ka saari kara waa kuwa ma dadka howlahaasi la falgeli kara ilaa in laga gudbaa si horumar loo gaaro oo ummadda ummadaha kaga mid noqoto casriga cusubna ay la jaan qaado si aad sheegtay marka yaa ka saari kara waa kuwa ma dadkaasi okay akhi waxa weeyaan annagu waxaan u baahannahay 3 macraka inaan galno 3 dagaal in la galo loo baahan yahay xaqiiqada waa saas weeyaan dagaal waxaa galaya dadka loo yaqaano aqoonyahanka iyo culimada dagaalna waxaa galaya dadka loo yaqaano aqoonyahanka siyaasiga ah iyo siyaasiyiinta dagaalna waxaa galaya istiraatiijiyiinta galaya 3 macraka waxaana laga galayaa 3 meedaan
haddii la rabo in challenge-yada laga gudba laga gudbo dagaalka ugu hore waxaa laga galaya wujdaanka iyo quluubta iyo dareenada waa in la bedelo quluubteenna dareenadeenna waa inuu isbedel weyn ku dhaco weyaan maxaan jecelnahay maxaan necabsannahay qofku hadduu qabiilkiisa jecel yahay uu dowladdiisa nacaya ka waran si horumar u gaari kara isbedel bay u baahan tahay qofku hadduu matalan walaalkii necab yahay uu cadowgiisa jecel yahay idana isbedel waxay u baahan tahay fikri qofku hadduu diintiisa qiimeynayo uu afkaarta kala qiimeynayo ee dibadda ka imanaysa ku leeyahay nin dhanoo xaakim nin dhanoo siyaasi ah oo marka qaarkood iska oran karayo soomaali diin kuma dhaqmi karto taa anaa huba way jiraan maxay ugu dhaqmi kareen soomaali diin haddii diin lagu dhaqmayo maraykan baa ku dhaqmi lahaa waana aqoon-yahan qofkaas waana aqoon-yahan siduu sheeganayso aqoon-yahanka runtii kaa maaha aqoon-yahanka runtii waa ninka son zu wax ka soo qaadanaya waa ninka nebi maxamed wax ka soo qaadanaya weyn aqoon-yahan runtii waa ninka cumar bin khataab ka soo qaadanaya saan maanta arki doono radia allahu canhu bin khataab uu ahaa nin istaraatiijikaala asalkiisa kufaanaya weeyaan marka aqoon-yahanka waa kaas weeyaan aqoon-yahanku waa ninka casriga la socda wixiisana aan ka tegin marka maxaan ku wujdaanka loo baahi la dhiso meedaanka labaad waxay rabaa maskaxda weeyaan maskax dib u dhacday seexatay amba la xaday maskaxdeenu waa labada sheekh cabdirasaaq amba waa la xadayba warar kale naga qaatay oo dibadda la aaday oo waxay doonaan kusoo shuba marka waa la soo noqonaa amba waa la seexiyey marka waxaan u dhaxaynaa bayna caqli naa'im wa caqli mustansakh caqli seexday iyo caqli lasoo bedeli marka waxaan u baahan nahay binaa caqli jadiid oo ah caqli islaami ah gobolka waxa ka soo garanaya caalamka la socdo kaana waa in dib loo dhiso waxaa loo yaqaan mataqaanaa icaadatu tashkiil alcaqli baa la yidhaha waa in dib loogu laabmo sidii loo samayn lahaa caqliga in dib loo warshadeeyo taasina waa meedaanka labaad meedaanka saddexaad waa maxay waa meedaanka dhulka alard juqraafiga iyo taariikhda iyo ummaddu waxa dhex yaalla problema in la xaliyo saddexdaa meydaan yaa ka kala shaqaynaya mataqaanaa meydaanka caqliga mufakiriinta ka shaqaynaysa meydaanka maaragtay difaaca waddankana ciidan baa ka shaqaynaya meydaanka la idhaahdo maskaxda oo la dhiso inta ka horeysa in dhulka la dhisana siyaasiyaa ka shaqaynaya laakiin anagu saan maanta arki doono siyaasiyiinteena geeska africa gaar ahaan soomaalida iyo kuwa kaleetaba maxay ka shaqeeyaan waxay dhisaan aqala iyo dhul intii la dhisay qofkii unbaa dumiyey marka aqaladii iyo dhulkii marka binaa maxaa dhahdaa xataa naxnu fi america shimaali matalan waxaa jirta qaacida anu aan ku shaqeeyo waxaa dhahdaa binaau saajidi qabla almasaajidi qofka tukanaya waa in la dhiso inta la dhisin miskiid haddii kale miskiidku beri uu faaruqi una kuma tukan doono laakiin haddaan ka shaqeyna binaau lmasaajidi qabla masaajidki maxaa dhacaya miskiidku faaruqi doonaa laakiin haddaan diyaarino dadkii salaada tukanaya oo oon dhisno ayagaa masaajid dhisanaya iyagaa ilaashanayna masaajid qurux badan bay samaysan doonaa marka annagu waxaan u baahnahay binaau lcuquul binaau lfard binaau lmuwaatin qabla alwatan inta wadan la dhisin horta muwaatin hala dhiso insaan hala dhiso inta aan la dhisin muasaso institushino inta la dhisin baarlamaan baan u baahannahay maxkamadaan u baahan waxaa ka horaya qofka baarlamaankan ka mid noqon doona haluu ka imanaya dadka buu ka imanaya qofka maxkamadda xog ridi doona maxaa dadku qaarkood uga jecel yihiin kuwa keynta jooga maxkamadooda maxkamadaha soomaaliya ka jira cadaalad bay raadsanaya kan waa la hirgelinaya cadaalad waa labo waxay u baahan tahay horta baaris cadaalade in la rido iyo in la hirgeliyo horta baaristii aada looma baarayo lamana ridayo ilaa qofka jeebkiisa la dhameeyo marka la ridana lama hirgelinayo laakiin kuwa keynta jooga waxay la hirgeli hadday hirgeli rabto ugu dhacayso waa la hirgelinaya marka annaga waxay naga maqan wax weeyaan inaan dhisno qofkii ninka waxaan la dagaalamayna al-shabaab waana inaan la dagaalano laakiin meedaanka aan shabaabka ula dagaalamayna waa halkee waa fikirka ma aha dhulka waan xoreynay waan erinay waan baabi'inay khalaayaana in bay isku bedelayaan way isa seexinayaan
orda xamar aada hargeysa aada jubbada aaga puntland aada iska seexda markaanu toojino ka caloodha laakiin haddaad qofkii binaadamka maskaxiyan bedeshid wuu ka dhex baxaya ka dhex baxay waxan waa wuxuu sameynaya ibn cabaas radiallahu canhu afar kun buu ka soo ceshay raggii khawaarij tahay soo qanciyey fikri buu la dooday marka waa mufakirkii waxaan u baahanay marka inaa sidaas loola falgalo marka saas baan qaybtaas culimada iskale waa tahay qaybta ugu badan dadka kale waxay u dadaalayaan meel wax gaarsiiyaanba laakiin hoggaanka siyaasadda ayagu doorkooda muxuu yahay waajib noocah baana ka saaran dalka iyo dadka okay ninka siyaasiga asama horta akhi waxa weeyaan siyaasaddu waa mushkiladda ugu weyn ay haysato weeyaan qaacidan ku siinaya akhtaru ma fi lxayaat nolosha maxaa ugu khatarsan nolosha bini aadanka maxaa ugu khatarsan oo ugu adag waxaa la idhahdaa waa maamul dhakhtarnimo maaha injineer maaha wax diyaarad la kiciya maaha saantuliidka cirka loo tuuraya maaha waa maamul soo ma fahmin akhtaru ma fi lqaraar asiyaasi maamul siyaasadeedna maxaa ugu khatarsan waa in decision la qaato waqtigu qofku decisionka qaadanayo waa marka khatar tahay qaraar siyaasiya oo la qaatana maxaa ugu khatarsan waa in dagaal la galo dhimashu keenaya len dhimashu keenaya asalka siyaasadda dhan waa nooleyn dhimasa maaha dadka in la nooleeya siyaasadda loo galaa in la laayo looma galo dagaalka walidaalika waxaan idhi markii xasan sheekh uu la dagaalamay macawisleydii uu la dagaalamay shabaabka waxaan idhi waa dagaal aan cabasi ah macno ma leh ma guulaysan doono dad badan baa sheekh bilowgiisii hore sidii baynu ku dhamaatay limaada lianna markaad qaraar siyaasiya oo dagaal aad qaadanaysid waa inaad garanaysid maxaad u qaadanaysaa walidaalika culummadu waxay dhahdaan qofka garanaya goormuu dirirayaa waa inuu garto goormuu guulaysanayaa iska gal maha dagaalka iska galo maaha haddaad tiraado dagaal baan galayaa horta garo maad guulaysan kartaa mise goor baad guulaysan kartaa waxaa kale oo ka mid a ninka xaakimka ah ee siyaasiga ah waa nin quyar socda maaragtay nin la idhaahdo maxaa loo magaciisa camr sulayt ibn camr alansaari radia allahu canhu baa cumar bn khataab baa u yeedhay wuxuu ku yidhi lowlaa cajalatun fiik haddayna jirin deg deg kugu jira la wallaytuka dowladdan ku dhiibi lahaa lowlaa cajalatun fiika la wallaytuka muxuu yidhi laakiin buu yihi hada alamr maamulkii wuxuu sheegayo laa yuslixu lahu ila arajulu lmakiith kuma fiicno inuu amarka qaadan karo ilaa nin degan waliba maaha mukthi maaha makiith faciil waa siiqat mubaalaga waa nin wax sugahaya nin wax sugaya degdeg aana ku jirin degdeg ku jirin sidii khaalid bin waliid radi allahu canhu markuu dagaalka galayo wuxuu heli jiray meelaha laga jabayo istaadigreyn jiray marka hore makiis buu ahaa camr ilbacaas baa kasii makiisnaa isaga weliba camr ilbacaas maba gelayba dagaal uu ku guulaysanayay lamana humana dagaal uu ku jabayba maba hayaba hadduu inuu ku jabayo ogyahay maba gelaya ma galayaba lianna waxaa wuxuu ku dagaalami jiray maskaxa kuma dagaalamin xoog marka ninka siyaasiga waxaa la dhahdaa waxaa la yidhi waa nin muta'anina waxaa dha alxaakim yajib an yakuuna mutabasiran waa inuu wax arki karo maxaa soo socda waa inuu leeyahayna ta'ani quyar socod labo waa inuu yahay mid digtoon degdega ka digtoon saddex waa inuu dowladda amnigeega ka shaqeeyo afar waa inuu abuuro ciidan lasoo weerari karin shan waxaa dhahdaa waa in uu leeyahay aragti ka duwan aragtida dadka kale ay qabaan dadka kale wax kasoo arkayaan isagoo laakiin waa inuu arkaya wax ka duwan walidaalika culummadu waxay dhahdaan ninka maaragtay hogaamiyihii waa ninka kora garbaha dadka si u arka waxayna dadku arkay marka meel istaagay kor buu fuu arkay ka dheeraya dadka kale marka waa inuu garbaha dadka koro
uu arko markaa nin waxaad i weydiisay ninka la yidhaahdo maxay siyaasiga ah shaqada u taalla maxay tahay eeg ninka siyaasiga ah annaga siyaasiyiinteena u fiirsaya kama fikiro siduu maaragtay sanso waan ka faa'iideysanahay kama fikiro inuu ragga jabiyo wuxuu balaniyaa u qorsheeyaa inuu kasbado farqi baa u dhexeeya bayna alkasri waalkasbi inaad rag jabisid cadow badan baa abuuratay inaad rag kasbatidna saaxiib badan baa kasbatay hadiya siyaasa walidaalika wuxuu yidhi ninkii maaragtay soomaaliga ahaa geesiga muxuu yidhi rag wax kastiba ku dayo wuxuu walaal ku dhaamo waan waayay rag wax aan ku dayin ma jirin wax kasta ku dayay laakiin akhiiran tajribadii waxay siisay walaal wuxuu ku dhaamo ma jiro waan waayay walidaalika sansuna wuxuu leeyahay sidaa ninka istiraatiijiga soomaaliyeed ninka waa istiraatiija ninka soomaaliga dadkiin waxay ku diraaseen geesi buu ahaa dagaalka laakiin waa istiraatiiji fikir dheer buu ahaa xilligiisuu ka horreeyey walihaada buu yidhi sansona weligaa qofka ha jebinin kasbo intaa karaysid siyaasiga markaa hoggaan ummad u noqonaya waa inuu dadka kasbado 3 beelood waa inuu kasbado nuqabka siyaasiga hogaamiyaasha waa inuu kasbado waxaa loo yaqaano ilidka dadku ay daba joogaan kulama aad kasbatid dadkii daba joogina kusoo raacayaan waa kasbatay ilidkuna waa labo ilid caaqila cuqaala iyo ilid maxay cilmi leh okay la waa kow waa inaad kasbatid quluub alcaama dadka caamada waa inaad kasbatid quluubtooda markaa siyaasi tahay arrinta saddexaad inaad kasbatid waxaa loo baahay waa inaad kasbatid dadka iraadada ale bedelitaanka ciidamada amniga mukhaabaraadka askarta ragga qaraarka markay qaataan dhammaynaya waa inaad kasbatid marka haddii aad ku guulaysatid saddexa inaad kasbatid ya ninkaas hogaamiya u guulaysanaya muslimiinta maanta maxaa looga baahan yahay geeska afrika degan inay iskasbadaan maa inay isculeysiistaan inay isdiraraan ma reero yar hoos oo magaalooyin isku yar haysta iyo aqalla isku haysta iyo maaragtay beero isku haysta iyo hada alcasri casriga maaha casrigaasi zamanka aan nool lahay maaha zamankaasi degmooyin la bixiyey iyo waxyaaba noocaas waxaa la isku haysta maaha ninka hogaamiyaha ee siyaasiga wuxuu yaqaanaa juqraafiyat alcamal asiyaasi sheekhay camalka siyaasigii juqraafi buu leeyahay waa inuu baran karo qofkaasi juqraafiga uu camalka siyaasigii uu leeyahay waa inuu aada u yaqaano ninka siyaasigii walidaalika waxay dhahdaan ragga maaragtay khubarada waxay dhahdaan maxaa ugu daran adduunka mataqaanaa siyaasiga ugu dar waayo waa siyaasiga isku hela 3 arrimood siyaasi doqona lacagna haysta hubna haysta kaasa ugu daran dadka waa doqon laakiin laba shay buu haystaa wuxuu haystaa lacag wuxuu ku gadanaya dadka caqliga yar leh hubna uu haystaa wuxuu kaga cabsinaya dadka badan siyaasigaasi markaa ma keenayo horumar laa exib inama exib ma kasbana dadka wuu jebinaya wuxuu abuuraya cadaawaad badan oo aargoosi hadhow toole sugaysa isaga iyo dadkiisaba sugaysu abuuraya walidaalika waxay dhahdaan culimmadu ina kasba alcadow afdalu min kasrihi qofka cadowga inaad kasbatid waxay ka fad badan tahay inaad ka adkaatid ninka maaragtay qaa'idka hogaamiyaha ee khatarta ah maba tagaba meel laga adkaanayo meelaan laga adkaanayo ma tagaba waxaa kaloo jirta ninka siyaasiga waxaa looga baahan yahay in uu fahmo laba shay asurcatu iyo addu'datu dagaal marka la galayo waxaa loo baahan yahay degdeg dagaalka waa inaad degdeg ku dhamaysid israa'iil maanta maxay ku jabtay hore u dhami wey dagaalka waa ina hore loo dhamayo 2 sano ku qaat shiinaha ruushka maxaa haysta hore u dhami waay dagaalka waa daalisa markaa dagaalku ma ficino inuu raago laakiin siyaasaddu waa inay raagto du'da yaro socod bay siyaasadda u baahan tahay soo ma fahmin marka siyaasiga maanta geeska afrika looga baahan waxyaan waa siyaasiga kala saaraya alcaduw alxaqiiqi iyo asadiiq alxaqiiqi kala saaraya cadowga wahmiga ee imaginationka iyo saaxiibka wahmiga imaginationka kala saaraya muwaadinka kaa soo horjeeda iyo cadowga
kuwaalaya ee iska qaadhigana saaxiibtiin inaad kala garatid weeye inaad kala garatid weeyaan meedaanka aad joogtid waa meedaankii dagaalka mise waa meedaankii siyaasadda waxaa haddaad garatid istaraatiijiyan dalka hogaamin karaysa waad badin karaysaa marka maxaa ka maqan hogaamiyaasha geeska afrika muslimiinta waxaasoo dhan baa ka maqan walidaalika waa laga faa'iidaysta waa la adeegsadaa waxyaalaad aadka ula yahay waxaa ka mid ah ninkan axmed ahabe dhahdo waa nin caqli badan muslimiinta geeska afrika oo dhan waa adeegsanayaa si u gaadha ujeeddo uu leeyahay markuu gaadhana waxaan arki doonaa